jaamacadda dalka Jabuuti ayaa u dabaal degtay xuskii 20aad ee sanad guuradaasi ka soo wareegay markii la aasaasay waxaana ka soo qayb galay dabaaldegan jaamacadda mas'uuliyiinta jaamacadaha wadamada Geeska Afrika kuwaasi oo ku heshiiyay sidii ay u wada shaqeyn lahaayeen iyo bay yiraahdeen sidii loo kobcin lahaa tayada waxbarashada ee jaamacadaha gobolka Geeska Afrika si aanay bay yiraahdeen waliba loogu dadaalo inaanu dabar goyn luqadda iyo dhaqanka Soomaaliga warka waxa daba magaalada Jabuuti nooga soo diray Maxamuud Bulxan gudoomiyaasha jaamacadaha Geeska Afrika khaasatan kuwa Soomaalida ugu magacaweyn oo ay kamid yihiin jaamacadda ummadda Soomaaliyeed iyo jaamacadda Hargeysa iyo kuwa kale ayuu shir uga socday dalka Jabuuti muddo dhowr maalin ah kuwaas oo diiradda lagu saarayay wada shaqeynta guud ee yeelanayaan jaamacadaha Soomaalidu mas'uuliyiinta ayaa waxa ay ka wada hadleen dhibaatooyinka haysta waxbarashada sare iyo sidii looga gudbi lahaa caqabadaha ku horgudban horumarka dhalinyarada Soomaalida Geeska Afrika iyo sidii loo mideyn lahaa quwadda jiilka mustaqbalka jaamacadu waa wax xaruntii lagu baranayay afka suugaantii lagu ilaalinayay wax kasta kulley way jiraan jaamacadu afka luqadahan af Soomaaliga way baraan laakiin hadda xilligan aan joogno teknolojigii iyo internetkii Facebook wax kasta jira dhalinyaradii xaggaas u sii jeesanayaan marka sidii loo dhaqan celin lahaa si fiican baa looga hadlay insha Allah heshiiskan baragali doonana akademigii baa jooga akademiyaasha in laga furo meel kasta jaamacad kasta inay ku yeeshaan taasina waa arrin kaloon ka heshiinayaan in ka badan 22 jaamacadood oo munaasabadan ka soo qayb galay ayaa dhamaantood waxay isla garteen sidii loo xoojin lahaa afka Soomaaliga isla markaana loogu dhigi lahaa jaamacadaha Geeska Afrika sidoo kale waxa ay isla meel dhigeen in la xoojiyo wada shaqeynta ka dhaxaysa jaamacadaha Geeska Afrika taas oo horumar u horseedi karta dhammaan dalalka gobolka khaasatan kuwa Soomaalida weeyaan horta sidaad sheegtay haday maamulku ay isbartaan ardayda jaamacadaha ka dhigtana way isbaranayaan oo waayo wax badan baan isweydaarsan karnaa waxaan isweydaarsan karnaa waxa weeyaan macallimiin waxaan isweydaarsan karnaa waa arday matalan waxaan ni soo qaaday jaamacadda Jigjiga in waxay ku xeel dheer tahay sida ariga loo dhaqo oo iyo geela marka arday jaamacadda Djibouti haduu doonayo inuu soo barto khibradaasi 3 bilood ilaa 6 bilood u tagi karaa jaamacadda Jigjiga sida kalena arday jaamacadda Jigjiga haduu doonayo matalan maareynta marsooyinka boorarka inuu barto khibradooda jaamacadda Djibouti ma karaya marka faa'iidadu waxa weeyaan maamulka in khibrad isweydaarsanaya macallimiintu isweydaarsanaysa iyo ardayduna inay isbartaan waan doonaynaa ugu dambeyn gudoomiyaasha jaamacadaha dhulka Soomaalida ayaa waxa ay ku dhawaaqeen inay yeeshaan urur ay ku midaysan yihiin jaamacadaha ku hadla luqadda afka Soomaaliga waxaana ay kala saxeexdeen wada shaqeyn guud oo ay yeelanayaan taas oo ay isku dhaafsan doonaan macallimiinta iyo ardayda si loo xoojiyo loona wadaago aqoonta guud Maxamuud Cusmaan Bulxan BBC Djibouti